yurub markaas maanta waxaas la waxyaabo badan ayaad ka faa'iideysaa moogta waxaasoo ka mid ah mustaqbal baad helaysaa noloshii hore mid ka duwan camal mid ka duwan mid ka cusub nolol ka wanaagsan mid baa timid ummadda markii la soo baxayo macnaha dad Yurub jooga waxay ku dhahayaan meesha nolol la taalo baawura haysanaa waa shaqaysanaa laakiin marka inta ay imaanay runta waxaan ogaanay in runta ay tahay in shaqo ay inay noloshii halkaas iyo nolosha halkaas inay fududahay tana noo adag labada oo waxay nooda sheekeeyeen dhakhtar baan ahay iyo lawyer baan ahay inaan aragnay inay meelaha musqulaha ku dhaqayaan runtaade la isku sheegaa raggii noo iman jiray ee intay baawur kala jiidan hablahan anagu soo shukaansanaynay nada hoos boobeen ayaan aragnay markii meeshan aan imanay kii nooda sheekeynay hebel dhakhtar baan ahay dee aan ku aragnay isagoo meel musqusha ka dhaqaya eeg dhibaatadu maaha shaqo looma xishoodo shaqo kasta sharaf bay leedahay laakiin raggii film baana intay noo soo mataleen aniga maanta isqoomomaynaya waxaan isku qoomomaynaya ilaahay بريسي مال عن ساحدو وأنا وحبا إذا في الناين أيان ماشين إيمي تصح واي نيو تهريب كوحني هاي أما قفا كان نحس ويا وش يكتيد تهريب كوحني وحكول هاي نينكا وحكا عشان محلها وحي يربيا لي بيلدي أنا صور كأنا أكيد سنة باور كي بري في اللذا هاي محلها وحابي كلا جوجوناي أو راحلة هاي وكاعشنا عمل هلا يابا إنه نكاسي أو عدو جاوي هلا يابا عمل هذا كيريني هروس علوك على فرصوتي جاي هو حاكم بحر نلا الشهر مركان أود كانوا يجوجنوا حي هاد فران يرنا إسكودني بروني جينا إسكديليني معنا وقتي منوقونين واسكسعنين اسكول كنديجنين لكن انت markii la imaaday mashruuc waaye mashruuc noloshii adkaatay nolol ku dhiibay dadkii wax isleeyeen ka Yurub jooga wuxuu haystaa meesha waxaan ku heynaa malo meesha waa fadhinaa leene meesha la dhuu iyo dibna la lagu dhiilaa Soomaali waxay kuma maaday in macnaha hadii waxa la rafaad badan raaxa ka tabayso rafaad badan aan soo marnay saxaro oo 16 maal lagu soo jiray xabsiyo badan bad oo macnaha naftada halis ay ku tahay mar qaar waxa isweydiiyaa macnaha naftada maxaa lagu soo gelis maxaa intuu u maatay haddana marka wada Yurub soo galay oo mar alla marka isdhaa walaal marka nolosha hadda waa isfuraysa wax barasho helaysa shaqo helaysa dadka asxaabtaada familkaaga iyo wixii meesha wadankaaga waxba u tiri kartaa haddana nolol kale la kulmay xabsi kor ka banaan la kulmay wadanka tag Dublin tahay luqadan aqaan baro haddana biri ka soo carro wadanka u laabi kartid meeshan waa laga rabaa meel ma aadi kartid iskoolkiga ku sugaayo marka fasax yar aan leedahay fasaxii ma ku kaafinayo waxa waaye هذا مثلا مد ولا الكا وحكولي بس ما أنت سويت تهريب على العجن كهرباء وحكا أمسية إن العجن جابك يكبحد أو يرب ودونك إيه تطالو لكن دتك مركز صوب حيان مكو حساب تمايان معناه فرال إسك سوق هذا دبل ناجرو شرعي جمهلية دتك وحصلنا دتك ما أمسين وحي أمسين وإيماني فراري إلا برجينا وضني هذا المرة على بركة عاد ودك كلها بتيت أو عاد هذه تقول فرصة ودك كلها بلد أو حول بسكوت ده ودك كلها بتيت عادتك وتكتحس لي إنك عن يوروب وجري أنت أصلا سنو طبعا سنة كل هذا صامغ ناي حدنا معناها وحو قبص ضمان عن سيكون عاد مرة على بركة ميدك لو هذا هذا قاعد هذا وحاها محلاي وحا صومالي أهان هدانا وحا أمسنا محلاي dadka Soomaali jooga علشان fikirkooda ani dad in la Soomaali joogaan waxa waa mar walba contact waxa xil baan naga dhaxay waxay aaminsan yihiin qofka bini aadanka oo ma Yurub ku nool inuu derbiga wal cagsiyaba derbiga la cagsiya saasi derbiga la cagsoo laakiin way jirtaa horta runtii khayriga nimcayo cuntada waxa kugu filan bas neef hada lagu soo qalay sariimada ayaa subaxda lagu keenay qadadii fresh waa cuntada halkan cuntada taal 9 bilood 7 sano waxa lagu leeyahay waxa ku jiraysa yaaba waxay tahay nina wuxuu ku soo tahriibaa $5,000 hadduu meel weyn oo bagaash uu ka furto stress ma galaayo ya asaga inuu taajiro oo lacagta isku filnaado kuleel ku jira macna kuleelkaas raac qabowgan wuxuu u maleeyaa kuleelkaas inuu dhib badan yahay laakiin hadda aan waa joogaa runta arkay maanta semester ma aadi kari lacagta ma kaafinayso ninka maanta Soomaali jooga aniga lacag badan waayo inta aan qaato ka badan oo qaato laakiin Yurub waa ka maqana inta ka maqana dhibka keenayso Soomaaliya waa anaka wax weyn maanta Soomaaliya ninka joogay wuu og yahay waxa la taagan yahay raki imika reeruhu ma diraane dumar bay ka jeceliin inay diraan intuu reer ku xal ornaa
inanku wax fiican ma soo taree waxba sooma diraye inantaa ka kharash yar wax ku baxaysa calool ka jilicsanee reerkeeda soo xasuusanaysa ma oge laakiin waxa soo maraya waanay ogyihiin way ogyihiin indhahay u adkaysanayaan waxay ka fikirayaan waxan ay naagtu soo dirayso oo ay tarayso maanta haddaan shicib islaama nahay laakiin dibka ka dambeeya ma oga ma oga dabka ka dambeeya iyo dhaqanka hadda dhibta iyo saxaraa markaa soo marayay waxaa u joogay gabdhaha nala socday ninka liibiyaankii uuna soo qabtay qol buu nagu xiray gabadha alla gabadha ugu qurux badan ee uu isleeyahay way ku anfacaysaa ayuu kala baxaya mana ka hadli kartid kama hadli kartid nin baa qori kula dul taagan joog buu leeyahay fartuu ugu yeelaya kaalay sidoo anu ka yeelaya halkaa qolkaas ku soo xiranaya kama hadli kartid waxaad samayn kartaa ma jirto waa inaad daawataa ilkaha ku daawataa indhaha ku daawataa waxa loo xawoodaa ma jirto waa hablahan gaar ahaan la hadlaya anuu hablaha intaasoo kunbaa sanad walba ku dhimanaysa badda intaasoo saaxiibadaya saxaraa ku dhimatay dad aan isla soconaa ku dhintay dad aan isla soconay meel walba asoo wada maray saaxiibadaydi ugu qaalsanaaba maanta biyaha hoostooda ku jira lama hayo meel ay ku sugeen midda kale dadka Yurub yimid mid baa u sheegay odayga wuxuu soo galay 80kii anaa joker buu taagan yahay turbu sidaa u daadinaya cadaanta ay igu dil waxu haya ma jirto 80kii soo galay 80kii uu soo galay xaggan iyo xaggan ma bidaar baa ka gashay wax alla wax haya ma jirto waddanku imana dhexda dhuqsanaa maalinkii kaliya dubnada u gambiyana halkan oo siyaasad ka sheekeynaya bilaayo wax alla wax haya ma jirto wax soo kordhinaya ma jirto dhalinyarta hadda soo gashay sanadadan waxoogaa Hariibka weli. marka wax badan baa u sheegay shaqaysto dadka dhex galo